caawa adduunka waxaad moodaa xiisad kale oo cusub in loo abuuray dalka Mareykanka waxa uu degniin adag u jeediyay Pakistan waxana uu ku yiri gantaalada ka gudba qaaradaha ee madaxa looga xiri kara nuclearka ee 5,000 kilomitir gaaraya ma samaysan kartaan Trump markan waxa uu bixinayaa hadal iyo amaro adag oo ku socda dawladda Pakistan waxay ka dhigan tahay Pakistan in tijaabo military la gali doono wax u dhigma sida Iran oo kale barnaamijka ayaan ku falanqeyn doonaa qodobkaasi oo aan si gaar ah uga eegi doonaa caawa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump waa nin aan la saadaalin karin siyaasaddiisa meeshay u socoto iyo tallaabooyinka military uu qaadayo markan waxa uu furay albaab kale oo dooda iyo waliba tallaabo u dhaweynaysa in Mareykanka uu qaado dagaal military oo ka dhana dawladda Pakistan isaga oo kulan xasaasi ah la yeelanayay generaalka ugu sareeya ciidamada dalka Pakistan Qasim Munir ayuu Trump waxa uu yiri Qasim Munir inkasta oo aad saaxiibkay tahay oo aan si weyn isugu fiicanahay haddana waxaan ka warhayaa inaad sameeynaysan gantaalka la yiraahdo ICBM oo ah gantaal ka gudba qaaradaha oo madaxa horena looga xiro bambooyinka nuclearka haddii ay taasi dhacdo waxaad noqonaysaan cadow istiraatiiji ah oo Mareykanku uu yeelanayo mana aha wax la aqbali karo ayuu hadalkaasi ka sheegay xilli qada uu u sameynayay generaalkaasi uu si gaar ah Mareykanka uga casuumay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump hadaladiisu waxay u muuqdaan Pakistan in ay markan galayso tijaabo military ila dhinaca sirdoonka ah ayaa u sheegay wargeyska The Foreign Policy ila dhinaca sirdoonka ah ayaa u sheegay wargeyska The Foreign Affairs in ciidamada dalka Pakistan warshadahooda wax soo saarka ay ku dhow yihiin in gantaalkaasi ICBM la yiraahdo ay soo saaraan haddii se gantaalkaasi ay gacanta ku dhigto dawladda Islaamabad waxay ka dhigan tahay cadow istiraatiiji ah oo gobolka koonfurta Aasiya ka soo baxay oo barbar yaalla Shiinaha Hindiyana qatar gelinaya suuragalna ay tahay Mareykanka inay garaacaan Pakistan haddii ay gantaalkaasi hesho waxay la mid noqonaysaa wadamada Shiinaha dalka Ruushka iyo sidoo kale dalka North Korea oo Mareykanku ay hadda si weyn isku hayaan haddaba muxuu yahay gantaalka aadka looga baqayo ee Trump uu leeyahay dalka Pakistan ma samaysan kartaan gantaalka waxa la yiraahdaa ICBM waa gantaal baaxad weyn leh oo ridadiisu ay gaarayso 5,500 oo kilomitir haddii laga rigo gudaha Pakistanna si weyn u garaaci kara gudaha wadanka Mareykanka maxaa ka yaabiyay dalka Mareykanka maxayse tahay dooda hadda keenaysa Trump inuu arrimahaasi banaanka keeno Pakistan wali ma saxin heshiiska xakamaynta nuclearka NPT la yiraahdo ama kan kale ee la yiraahdo CTBT taasi oo tilmaamaysa in Pakistan markasta ay qaadi karayso tallaabo military haddii Pakistan ay hesho gantaalka la yiraahdo ICBM Mareykanku waxa uu ku qasban yahay in uu la dhaqmo sida cadow nuclear ah sida ay sheegeen saraakiil sare oo sirdoonka wadanka Mareykanka ka tirsan ee la hadlay wargeyska The Foreign Affairs waxa kale oo la sheegay in Shiinuhu uu si hoose uga caawiyo Pakistan dhinaca teknolojiyada gantaalkan halista ah oo hadda qalqal gelinaya dawladda Mareykanka Islaamabad ayaa laga shakisan yahay baaliyay inay doonayso inay ka hortagto faragelin kasta ee Mareykanku uu ka sameeyo mustaqbalka haddii ay tallaabooyin military ka qaadaan gudaha wadanka Hindiya isla markaana dagaal weyn oo gobolkaasi ka dhaco haddaba xagee maraya mashruuca gantaalkan dawladda Mareykanka halista weyn gelinaya inkasta oo aan faahfaahin rasmi ah laga hayn gantaalkan goorta la bilaabay isla markaana aan loo soo bandhigin dhismihiisa shacabka wadanka Pakistan haddana dawladda Islaamabad waxay u muuqanaysaa militarigeeda in ay sameynayaan tallaabooyin hoose oo ay kala shaqeynayaan dawladda Shiinaha taasi oo Mareykanka gelisay qalqal weyn kadib markii hay'adda CIA Mareykanku ay hesho xogta gantaalkan iyo waliba in qalab kasta oo lagu farsameyn karo hadda ay gacanta ku hayso dawladda Pakistan sidoo kale horumarka gantaalkan iyo kubcintiisa waxa uu soo baxay markii dalka Hindiya ay ku dhawaaqeen howlgalkii la oran jiray Sindoor ee looga hortagay
howlgalkii ay ku dhawaaqeen Pakistan ee la oranaya bunyaanul marsuus ee ahaa dagaalkii labada dhinac Islamabad iyo New Delhi u dhaxeeyay kaasi oo ka bilowday gobolka la isku haysta ee Kashmir. markii awoodda Pakistan ay banaanka u soo baxday Mareykanka waxa ay bilaabeen inay si degdeg ah arrinta u soo farigeliyaan si weyn oo qoto dheerna loo baaro gudaha wadankaasi Pakistan. doorka Shiinaha ayaa la tilmaamayaa inuu yahay kan ugu ballaaran ee gantaalkaasi lagu dhisayo. Shiinahu waxa uu doonayaa in si ka u dhigma baa la yiri wadamada Ruushka iyo Shiinaha ay dalka Pakistan noqoto wadamada Mareykanka hadda uu arkaya cadawga maadaama gantaalahooda ay hadda dhisayaan. dalka Pakistan waxa uu kamid yahay wadamada haysta nuclear-ka ee sida weyn caalamka looga boqo inay dhaqdhaqaaqyo sameyn karaan. Pakistan ayaa nuclear-ka qorshaysay inay dhisaan wixii ka dambeeyay sanadkii 1970 xilligaasi oo dawladda Hindiya waa 1974 ay tijaabisay gantaalkii ugu horeeyay nuclear. laakiin dawladda Pakistan iyo Abdulqadir Khan oo muddo dheer arrimahaasi ka shaqeynayay sanadkii 1998 dhamaadkii qarnigii tagawayaan ayaa waxay dhiseen gantaalii ugu horeeyay oo nuclear iyo bambooyinkii ay sameeyeen 170 bam oo nuclear ayaa wararku sheegayaan in Pakistan ay hadda gacanta ku hayaan. haddaba maxaa kulmiyay sacan naasa adag iyo weedha Trump waa dooda ugu ballaaran ee hadda horta la warbaahinta adduunka. sida la socotaan Donald Trump Pakistan ayaa waxa uu hadalkan u jeedinayaa iyadoo dhawaan la soo gabagabeeyay dagaalkii u dhaxeeya Israel iyo sidoo kale Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran. dagaalkaas oo soconaya muddo 12 maalmood 13 bishan aynu hadda ku jirnana ka bilowday gudaha wadanka Iran kadib markii diyaaradaha dagaalka Israa'iiliyiintu ay garaaceen xarumaha nuclear-ka iyo waliba goobo ay deganaayeen Israa'iil iyo aqoonyahan kale oo Iiraaniyiin ah. dagaalka ayaa noqday mid baahay iyadoo Mareykankuna uu soo farageliyay oo uu weeraray xarumaha Natanz, Fordo iyo waliba xarunta nuclear-ka ee Isfahan. intaasi markay dhaceen kadib Pakistan waxay ka mid ahayd dawladaha sida dhabta ah u sheegay inay garab istaagayaan wadanka Iran. hadda waxay u muuqataa Mareykanku inuu ka leeyahay digniintan laba istiraatiijiyad oo waaweyn. waa mid in Pakistan tabar ahaan loo tuso in digniintii ay jeedisay ee ka dhanka ahayd reer galbeedka la dareensiiyo in mustaqbalkooda uu taaban karo, iyo kan kale oo ah in dawladda Mareykanku aysan ogolaan karin in dawlado ku yaala Aasiya ay samaystaan hub culus marka laga reebo dalka la yiraahdo Shiinaha oo hadda awoodiisa Mareykanka ay aadka ula loolamayso. Pakistan oo gantaalahan hesha waxay ka dhignaan karaysaa dawlad quwad leh oo saameyn ku yeelata go'aamada waaweyn ee adduunka, waxaana ay soo fariisan doontaa meelaha ay hadda fadhiyaan dalalka la yiraahdo Shiinaha, Ruushka, Mareykanka, North Korea iyo sidoo kale wadamadan awoodooda lagu dhicin ee ku yaala qaaradda Yurub.